Ma tahay arday ma doonaysaa in aad noqoto arday wanaagsan oo rumeeya hadafkiisa nolosha? Waxaan kula wadaagayaa sidaad ku noqon lahayd arday wanaagsan ee guulaystay. Ardaynimadu way adag tahay waxayna kaaga baahan tahay dulqaad iyo karti badan. Ardaygu waa qofka taga goobaha waxbarashada sida dugsiyada, machadyada, jaamacadaha, kollejyada iyo wixii la mid ah. Haddaad tahay arday raba inuu gaaro guul, waxaa muhiim ah inaad geliso naftaada dadaal iyo tamar badan. Waxaa jira astaamo lagu garto inaad tahay arday wanaagsan iyo in kale, waxaana ugu muhiimsan intan soo socota. Waa inaad tahay mid Allihiisa ku xiran. Waa inaad tahay mid akhlaaqdiisu wanaagsan tahay. Waa inaad tahay mid waxbarashadiisa ku dadaala. Waa inaad tahay mid labadiisa waalid baari u ah. Waa inaad tahay mid waqtigiisa ka faa'iidaysta. Waxa ugu muhiimsan ee laga rabo haddaad doonaysa inaad noqoto arday rumeeya yoolkiisa waa inaadan dayacin waqtigaaga. Waxaa jira astaamo lagu garto ardayga wanaagsan. Adigu ma leedahay astaamahan? Waa inay kaa go'an tahay inaad guul ka gaarto waxa aad baranayso. Waa inaad muujisaa dadaal iyo karti dheer ah. Ardayga wanaagsan waa midka hogaamiya fasalkiisa. Haddaad rabto inaad noqoto arday wanaagsan, waa inaad yeelataa astaamaha aan kor ku soo xusnay. Waa inaad wehel ka dhigataa camalada wanaagsan ee Alla ku faray. Naftaada waa inaadan barbar dhigin dadka kale. Waa inaad noqotaa qof maarayn kara waqtigiisa. Waa inaad caddaysaa habkaad ku gaadhi lahayd yoolkaada. Waxaad tahay rajada waalidkaaga iyo qarankaada. Waa inaad noqotaa arday han weyn oo bulshadiisa anfaca mustaqbalka. Markaad tahay arday, waa inaad noqotaa mid akhlaaq leh si aad u noqoto ardayga wanaagsan oo beri hogaamiya ummadda. Waa inaad barataa qorshaynta iyo sida mudnaanta loo kala siiyo howlaha. Waa inaad isweydiisaa waa maxay hadafkaygu. Haddaad rabto inaad gaarto guul weyn oo aad mustaqbalka khayrkaa ku dhaafto, waa inaad iska daysaa hurdada badan, ciyaar ama dheeldheel ama waqtiga oo aad iska lumiso. Ardayga wanaagsan waa midka qorshaysta noloshiisa ee yeesha han iyo hiigsi uu ku gaaro wuxuu rabo. Adiga haddaad rabto inaad noqoto arday wanaagsan, waa inaad yeelataa astaamaha uu leeyahay ardayga wanaagsan.